يرادا أخلاقياتك iyo dhaqanku iyo kobcinta nafta waxay u baahan yihiin istimraariya iyo mumaarasa waxa la yiraahdo waxay u baahan yihiin joogtayn maanta marka lagu wacdiyo waad saxnaananaysaa caawa marka gurigii tagto waxaad leedahay waxaad u baahan tahay inaad naftan geed ku xidho ilaahay ka baqatid aroorta si waaga dambe markuu bariyo wixiiba midba kama xasuusid marka waaga dambe bariyo walidaalika Soomaalidu waxay yiraahdaan wacdi iyo weydba habeen baa lagu seexdaa bay yiraahdeen iyagoo uga jeedan waa marka hore lagu sheegayo uuni wax dambe oo ka sii dambeeya ma jiraan maxay naftu u baahan tahay markaas waxay u baahan tahay in hoggaanka loo hayo oo la kobciyo waxay u baahan tahay in la barbaariyo waxay u baahan tahay in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo dhaqanka fiican oo lagu ilaaliyo akhlaaqda wanaagsan oo lagu ilaaliyo tawxiidka waxay u baahan tahay naftu la daahir yeelo laga daahir yeelo amraad alqulub wa nufus xanuunada ku dhaca nafta in nafta laga ilaaliyo dhulumaadkeeda iyo madmadowyadeeda in nafta laga ilaaliyo waxyaabaha tanjiisiye nijaaseeya in nafta laga ilaaliyo shahwaadka kuwa xisiga iyo kuwa macnawigaaba waxay u baahan tahay naftu in laga daahiro markaas gaalnimo shirki riyaa nifaaq waxay u baahan tahay in laga daahir yeelo naftu magacdoon iyo maamustoon naftu xub alburuuz inaad muuqato binaadamku iska jecel walow wacdina ku muuqo in waa hebel hebel lagu yiraahdo aad soo baxdo naftu waa iska jeceshahay laakiin soo bixistu khayr ma leh waxa khayr la qofku inuu mutawaadic yahay oo ilaahay ku xidhay ba khayr leh idan nafta binaadamka ay shaytaanku hadduu ka celin kari waayo khayr wuxuu isku dayaa khayrka inuu ku dardarsiyo adigoo khayrkii sameynaya haddana khayr bila ajra inuu ka noqdo adigoo camalkiiba sameynaya inuu camalkaaga ka dhiga mid ikhlaas beelay ama mid magac iyo maamuus aad ku raadinaysay oo aan ilaahay agtiisa waxba aanad kaga helin bay nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh aakhiro kuwa naarta loogu horshido maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa buu nabigu yidhi ku wax bixin badnaa waxaa ka mid ahaa buu nabigu yidhi ku quraan akhris badnaa waxaa ka mid ah buu nabigu yidhi maxay ku jihaad dagaal badnaayo geesi ah iyo jihaad ku dhintay saddexdaba naartaa lagu shidaa buu nabigu yidhi sababta markii nabiga la weydiiyeyna wuxuu tilmaamayay ka koowaad ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa qur-aankii aan ku baray maxaad ku samaysay ilaa habeen iyo maalinba waanigii akhrinayay buu yidhaahdaa waxa alla uu ku yidhaahdaa waxaad salahayd alla yidhahda hebel waa nin qur-aan akhris badan deyntiina waa tii dadku ku yidhaahdeen magac xumeed ku doonaysa iyo maamuus iyo hebel nin ka tajwiid fiican ama ka qur-aan fiican ama heblaayo say qur-aanka u qaybsan tahay jaayisad kasta iyadaa qaadata intaa umaad ka rabtay deyntiina lagu yidhi buu ayuu alla ku yidhahda subxaana wa tacaala aniga agtayda waxba kuma yaalin kii adduunka badnaa baa la yidhahdaa maxaa waxa uu yidhaahdaa ilaah waanigii bixiyey wixii aad nimcay siisay waxaa lagu yidhaahdaa waxaad u bixinaysay waxay ahayduun in la yidhahdo ninkaa hebel waa deeqsi hebel gacantiisu waa nin faxala oo gacantiisu kala baxsan tahay deyntiina lagu yidhi baa la yidhahda ilaah agtiisa waxba kuma lihid kii kale jihaadka ku dhintay waxaa la yidhahdaa waxaad u diriraysay uun in la yidhahdo ninkaa hebel waa geesi xaggu kaa xiga lagaaga soo dhici maayo deyntiina lagu yidhi baa la yidhahdaa idan xataa shaytaan hadduu kaa waayo inuu cibaadada kaa joojiyo wuxuu isku dayayaa markaad samayseen inuu ku dardarsiiyo ku dhinac marsiiyo oo wixii ammaanta ahaa ee ilaahay agtiisa wax lagaga helaya waxaan ahayn inuu waxaagii ka dhigo idan waxaynu u baahanay nafta inaynu ilaalino inaad naftu way sankay taagaysaa iyo madaxaad hoos u celiso ilaahay mutawaadic ilaahay aad u dhul dhigto walaalada aanay ka san taagin aad hoos u celiso magac iyo maamuustoona aanay doonin aad u diiddo naftu xuduudi nafs alanaaniya anaadu way tiro badan tahaye inaad anaa oo dhan ka joojiso wax allaale iyo waxa ay naftu rabto ee kugu qasbayso dhan inaad u diidid idan naftu waxa ay doonaysaa way tiro badantay meesha ay ku socotaana waa mahlaka waa dhul khatara waxaa loo baahan yahay naftan hoggaanka loo xejiyo inaad xaasidnimada ka ilaaliso oo bakhaylnimada ka ilaalisid oo isla weynida ka ilaalisid oo inay naftaadu ku cajab geliso aad ka ilaalisid oo adduun jacaylka aad ka dhowrtid oo hawa jacaylka aad ka dhowrtid ilaahay wuxuu tilmaamayay qoladii jannada gelaysay maxaa la yidhi faama man khaafa maqaama rabbi wanaha annafsa can ilhawa maxaa ilaahay tilmaamay faina aljannata hiya alma'wa janna haddaad doonayso waxay ku xidhan tahay wanaha annafsa can ilhawa waxay doontaba inaad diiddo albusari gabaygiisii muxuu ku sheegayay wakhaalif الnafsa wالshayطaana wacsihima war naf iyo shayطaan weligaa caasi buu lahaa
oo hadday isku kaadayaan buu yidhi wain humaa maxadaaka nusxa fatahimi xataa hadday shaydaan iyo nafis u kaadayaan inay kuu naseexeeyaan naseexadooda xataa ka shaki buu yidhi waxaa ku sugan meel khatarun bay kuu wadaane idan waxaa habboon in nafta aad ka xakamayso waxay doonto oo dhan waxay doonto o dhan inaanay kaa helin waxay doonto o dhan hadday kaa hesho jabtay naftu waxay u baahantahay in la rabeeyo lagu rabeeyo tawxiidka ilaahay iyo ilaahay subxaana wa tacaala asmaa ilaahi alxusnaa inaad dhadhansato tawxiidka ku rubayntiisa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inaad rumaysato ilaahay inuu keliya waxaa ka mid ah inaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan haddaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan waxaad u baahataba isagumaad weydiinaysa haddaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan waxaad u baahataba isagumaad weydiinaysa